deegaamo badan oo ka mid ah gobolada Togdheer, Sool, Oodweyne, Saraar iyo Buuhoodle ayaa lagu soo waramayaa in xalay ilaa maanta ay si weyn uga da'een roobabka gugu. Deegaamada ay sida weyn uga da'een roobabka gugu ee goboladani ayaa waxaa ka mid ahaa Habaasweyne, Balshiikh, Jaleelo, Beer, Badweyn, Waridaad, Coodale, Muraayada, Habarheshay, Qabri Huluul, Tukub, Horfadhi iyo deegaamo kale oo badan kuwaas oo dhammaantoodba ka tirsan gobolada Togdheer, Sool, Oodweyne, Buuhoodle iyo Saraar. waxaana dhammaan roobabka ka da'ay deegaamadani ahaayeen kuwa dad iyo dunyaba si weyn loogu diirsaday. Gudoomiyaha gobolka Oodweyne Maxamed Gahayr Xirsi oo aanu kula kulanay magaalada Burco xilli uu soo maray deegaamada roobku ka da'ay ee gobolka Oodweyne ayaa ka warbixiyay roobku deegaamada uu ka da'ay iyo heerka uu gaarsiisan yahay. waxa kale oo lagu cabay oo buuxiyay Habaasweyn iyo Balshiikh. alxamdulillah meel kale oo yar wala sheegay in kastoo aanu dhul badan oo biyo galay aan jirin haddana afwaraab waxa looga cabay waxa laga cabay Khaatuba agagaarkeeda waxa laga cabay Gocon Dhaale runtii alxamdulillah ilaahay baan baryaynaa inuu abaarta inaga soo jabiyo. alxamdulillah roobkii guga ayaa loo bilaabay marka xagga Oodweyne dooxii soo gudbo xagga waqooyi roob xoogay ayaa laga xidhay. waxaan kaloo halkan ka sheegayaa alxamdulillah dadku markay helaan roobka xoolaha iyo dadkuba aad loo jecel yihiin sidaa darteed waxaan baa ku soo jeedinayaa xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha ilaahay baa dad bixiyay aynu nidhaahno dad bixiyaasha oo aan leeyahay dadkaasi way jilicsan yihiin xoolihiina way ka jilicsan yihiin marka ay biyo helaan ilaahay waraabiyo waxay u baahan yihiin gurmad samata bixina. roobabkii xalay ilaa maanta ka da'ay deegaamadani ayaa iyagu ahaa kuwa si weyn looga hadlayay gudaha magaalada Burco iyagoo ay indhahaagu qabanayaan in booyadaha biyaha ee geen jiray deegaamada ay ka jirtay abaarta xuni in hakad weyn ku yimid raxmaadka iyo dhibicda ee timid darteed. deegaamada ay booyadahaasi gaari jireen ayaa iyagu ahaa kuwa ay qiimaha biyuhu kor u kaceen iyagoo ay jireen deegaamo foostada biyaha lagu kala iibsan jiray qiimo gaaraya $20. ugu dambeyntii roobabka guga ee bilaabmay ayaan iyagu ku koobnayn oo kaliya dhulka miyiga ah balse waxaa jiray in roobab goosgoos ahi ay ka da'ayeen magaalooyinka Soomaaliland qaarkood sida magaalada Burco iyagoo xilliganna ay magaalooyinkaasi ay dalaalimo u noqdeen daruuraha xambaarsan biyaha roobka. Maxamed Caawad Maxamed telefishinka caalamiga Somali Channel xarunta gobolka Togdheer Burco.